بسم الله الرحمن الرحيم waxaan bilaabanayna mawduuceena maanta mawduuceen wuxuu noqonayaa maanta inaan dadka wax yar u iftiimino fikir guud wixii aan haysanay sidoo inooga burburay wax kale saynaanu haysanin cidna uma maqna ceelna uma noqdo marka waxaan in yar ka taabanaynaa mashaariicdii waaweyneed ee la oran jiray MDG-ga ee soo bilaabatay 2000 ee socotay ilaa 2015 sidan caadiga dawladda Itoobiya waa dawlad ku nool deeq marka meelun baa caalamka wax laga soo qoondeeyaa marka UN waxay samaysay oo 2000 la bilaabay mashruuc la yiraahdo MDG Millennium Development Goal marka Itoobiya waxay ka mid ahayd wadamadii ka faa'iideystay inaguna xilligan baa la soo bilownaa mashruuca intii ka horeysay shirkado kale oo gacanta ma taqaanaa xilliyada qandaraasada iyo waxa qaadanay way jiraan oo Oromia iyo laga leeyahay iyo shirkadda ciidanka ku yimaatay la oran jiray Oromia Enterprise Oromia Waterway Construction kuwa noocaas laakiin intii dambe shirkadii noocaas xitaa kuwa inagu aan leenahay baa lagu bedelo Enterprise aan leenahay baa la abuuray marka waxaan yar ka taabanaynaa mashruucan MDG-ga ahmiyadu dadka u lahaa iyo sida uu u burburay marka ahmiyada uu lahaa waxay ahayd mashruucani inaan wax yar ka taabano ahmiyada mashruucani waxay ahayd bulshada deegaanka ku nool inay hesho biyo deegaanka waxa jira waa deegaanka ugu biyo badan xagga biyaha ma taqaanaa underground waterka marka laba biyo in laga faa'iideysto kuwa dhulka ku jira in laga faa'iideysto oo la soo saaro kuwa river inta la yiraahdana in laga soo jiido toga waqtiyada ma taqaanaa roobku da'ayo kadibna markay buuxsamaan nidaamkii hore wadadiisi lagu leexiyo tog oo sidii lagu soo celiyo marka mashaariicdii noocaas ahayd ujeedadu waxay ahayd in ceelka halkan laga qoday ee biyaha badan inta la waxeeyo in xooluhuna ay ka cabi karaan mashaariicdaas marka waxay ahaayeen oo loo oran jiray water supply and rangeland projects dhul daaqsimeedna waa loogu talagalay dhulka daaqsinta every 5 kilometer in xooluhu ay ka cabaan xooluhuna ay daaqaan beeraha marka meeshii biyaha lahayd in laga jiido biyihii deetana meesha kale oo mana ahayn in halkeedii biyaha loogu geeyo kadib dadka meesha degan inay noqdaan dad degan oo salka ka degan oo xoolihii biyihii inay haystaan cawskii inay haystaan beerihii inay haystaan wax walba oo halka isu saaran yahay ayaa loogu talagalay inay noqoto kadibna xoolahoodu inay noqdaan hadhow xoolo ma taqaanaa hilib le miisaan le laga gadan karo suuqa la geyn karo iyaga noloshoodu inuu wax ka bedelo marka guud ahaan waxa loogu talagalay mashaariicdii la sameeyay Itoobiya iska daakilka in Itoobiya xitaa wax ka tarto marka guud ahaan mashruuc marka la sameeyo UN-tu daaimka mashruucii uu dhamaaday inaga dib leynaguma soo celinayo wuxuu naga burburay mashruuc marka la sameeyo mashruuc waxa jira direct beneficiaries iyo indirect beneficiaries direct beneficiaries waxa weeyaan waa shacabka dadka looga faa'iideynayo ee la rabo inta loo dhameystiro mashruuc inuu bilaabmo functional uu noqdo cid la rabo waa shacabka qandaraaslaha ma aha qandaraasluhu waa indirect beneficiaries waa kuwa sida dadban uga faa'iideysanaya qandaraaslaha iyo dadka ka shaqeynaya iyo dadka wax ka baranaya mashruuca ma taqaanaa skill ka baranaya ka kordhisan waa indirect beneficiaries laakiin ujeedadu waa shacabka marka mashaariicdii noocaas ahayd xilligaas soo bilaabatay ilaa laga bilaabo 2000 ilaa 2015 sanad walba waxa la qiyaasayaa anagu audit ma nihin laakiin macluumaadkan soo urursanay sanad walba waxa ku baxaysay lacag gaadhaysa 2 billion guud ahaan mashruuca waxa ku baxday 32 billion muddada 15 sano halkaas ولحين سنة نقول صح إلا الله بديك إلا بكون شنتو صدقني اللي ببليون باكو بحد مرك مشاريع ذا سي العجها سواحي سويتشرين قوات ألعاب تلوث يبينه يو وحيابا إن كان دو الله سوي يبينه يقلبيها النقطة هي ميزانية دي أطوس راس شوية أو انتربرايز دي أما الشركة دي هي كلا الصينية سابي سويتشرت العجتاس مشاريع دي نوع عاسهيد قبل أول بالجفلية أنا جو واحد دوني أكليتها in dadka picture yar aanu iftiimino mashaariicda ugu weyn waxa laga sameeyay gobolka City waa laga sameeyay waxa jiray mashruuc la yiraahdo DAD 1 DAD 2 DAD 3 waxa laga soo gaabiyay dambal ee shaca dawalle
waxaa jira harawe isaguna mashaariic badan baa jirta mashaariicdii noocaas ahayd waa la dhammaystiray waxaa jira wax kale iska daan tusaale usoo qaadan karnaa keliyata 2005 mashaariicda la dhammaystiray keliyata waa kuwan bal wax kaleba intaynaan gaarin sanadkaa mashaariicdii faraha laga qaaday ee la dhammaystiray ee gobolkaa laga hirgeliyey iyo meelo fara badan oo kale uu sheegi doono ee loogu talagalay in dadku ay ka faa'iideystaan waa la dhammaystiray laakiin dib bay u burbureen maxay u burbureen meelaha qaarkood harawo iyo meelaha la mida waxaa ka baxayba biyihiisa u fatahayeen waxaa ka baxay geedka la yidhahdo garanwaa libaaxaaba galo oo dadka iyo xoolaha ku cuna maanta kuwii kale saasoo kale u burbureen mashaariicdii noocaas ahayd 40 ceel baa halka laga qoday 40kii ceel wax ka jira dadka u jira 10 kilomitir maanta oon baa ugu dhimanaya wixii noocaas ahaa ee la dhammaystiray lama joogtaynin markii isbedel ku dhacay waxaa jira imika mashruuca harawa sprinkler irrigation project baa jira waxaa jira baka water supply gunagada water supply dartu water supply Gorabaqas water supply Sigis water supply Bore Holsers eastern part of the region Harshin Aware Yoale Danot Gashamo Doratole waxa soo dhan waa projects water supply baa haya qaarkood oo dhamaystirmeen shaqadii bay bilaabeen waxa kaloo jira mashaariic fara badan gobol aan laga hirgelinin mashruuc ma jiro 16ka page waxa ku wada qorani waa mashaariic weeyaan marka hal day ismu dulstaay karno laakiin anigu waxaan siinayaa highlight tusaale waxaan soo qaadan karnaa gobolka city mashaariicda laga hirgeliyay saas oo burburtay full stop wuxuuna ahaa projectiga ugu weyn dawlad deegaanka Soomaalida marka laga hadlo arrimaha MDG waxa la wax laga hayaa ma jiro anigu information-ka iyo highlight-kan siinaya waa ka run misabeen uu burburay waxaad soo qaadataa biyo-gelintii faafana wayde biyo-gelintii gaar ahaaneed magaalada Jigjiga away isbedelku markuu yimid khaladaadka dhacay iyo sharci darrada dhacday waxay ahayd mashaariicii socotay dadkii wadi waa laga kansalay oo inagu maxaan u danaynay direct beneficiary kii dadkii ma inaanu danaynay indirect beneficiary waxaan u danaynay qandaraas leh abdiile qandaraas lu siiyay inaguna intaan ka qaadna aan qandaraas la siisano qabax waxyaabaha Soomaalida lacag ka mashaariicii socotay dadkii si sharci darra looga qaaday hadda lacagna uu ku qaatay ugu warma waxa isbedelaya nidaamka iyo kursiga hogaaminta isbedelaysa maxaa qofkan mashruuca qaatay mashruuc marka la bixinayo dee qofku design iyo specification ba ku qaatay sharcigu waa waraaqo adna waraaqo baad qofka u sameysay waraaqana waa loo sameeyay iyo heshiis iyo shambado iyo saxiix adna inta un baad sameysay abdiilana inta un bu sameeyay marka waraaqahan maxaa waraaqihii ka bedelay nabal cadaalad darrada jirtayga dadkii noocaas waa laga bedelay marka dad hor laba la siiyay halka maxaa ka dhacay gaab baa ka dhacay fawda ka dhacday mashaariicdu dib dhacda ka dhacday miisaaniyada lunta ka dhacday abiy markuu yimid mashaariicdii la waday dad baa la siiyay tigre madaxweynuhu markuu yimaado cid baa la siiyaa kale oramiya lama maqas markii laga qaaday ma cid kale la siiyay shimalis ma qandarasa kale u yaadhay waxa ku tusinaysaa inaynu nahay dad fawda ka samaysan had iyo jeerba oo fawda nidaam fawda u socda taayana waxba ku sii dharaanin waxaan uga wadaa biyo-gelintii magaalada Jigjiga naag Tigre qaadatay wada doonaha lagu siiyo keliyata waxay ahayd in la xisaabtamo aniga sharci ahaan saylata qofku marka uu cabsan lahaa mashruucii buu iska dadajin lahaa marka la yiraahdo design-kii biyaha aad qaadatay waa kan muddadana waad waday waa inaad muddada ugu dhameystirto payment-igi iyo wixii waa ku dhameystir qofka cunaha la qabto isagaaba cabsani naagtii way dacwootay waxay tagtay maxkamadda waa loo soo xukumay lacagtoodii iyo intii pending ahayd kiilku inuu bixiyo ku qasban yahay kuwii Soomaalida laakiin maadaama sharcigu waxba siinaynin iyaga waa laga adeeg yahay hadda naagtii Tigreega ay dhigayso look maxkamadda tagtay waa loo soo xukumay laakiin kuwii Soomaalida kale ku khasaarsan yihiin mashaariicdii biyo-gelinta Jigjigana saasoo kala ka dhacday waxa jira mashruuca baka birqod gunagado marsin doratole kadib gaashamaalka ka galaya isagoo shaqeynaya ayuu abdiile dhacay muddo 4 bilooda mashruucaasi intaas oo dad waraabinayay wuxuu u taagnaa deynaba yar oo 200 kuna
afar bilood buu taagnaa bil kale deynabadii waa la geeyey muddo bila haddana wuxuu u taagnaa shidaal la'aan waa la soo xaqiijin karaa hadda waa dhaweyd madaxafseedka biyaha ayaa ka war helay arrintii booyad biyaa loo diray booyadii biyaha hadda waa gabagabo booyadii biyaha markii loo diray shaqaaliyaalka ka shaqaynayay mashruuca mushaharkoodii baa bil la goostay oo la yidhi maxaan ku idhaahdaa annagu shidaal idinma hayno halkana lagu reebay marka waa sida informationka lagu soo sheegayay weeyaan dadkeenuna dee beenta ma sheegaan 3 qof oo dadkeena dhaqanka magaalada ma aha dadka la xiriir waa dadka waxa faraha ku hayo qalbigooda caadiga ah mashruuci noocaas ah waa sida waxa jira markaa mashaariicdii kale galbeedka goday mashruuci ugu weynaa ilaa dargigii la soo waday waa la dhamaystiray waa mashruuci loogu talagalay dadka halka degan iyo deegaanka in 100% inta ka faa'iideystaan inuu kaligi ku filaado horumarka mashruuci noocaas ah maskaxdaada aragti la geliyay lacagtaada aragti la geliyay waqtigaada aragti la geliyay wuu dhamaystirmay baleek mashruucna wuu si kolobsi garoobaya dadka u faa'iideynaya oo intaas oo bilyan ay ku dhacday ku kalena waa laga garab bixinaya midkay tahay priority in la saaro bal aqliga meesha ka jira ilaa man ku dheeriyay qiyaasa mashruuci noocaas ah maanta kanaaladii main kanaliski biyaha qaadayay ay biyuhu kala raacayeen ma taqaanaa sii qaadayay biyaha way asmeen waxa ka baxay geed la yiraahdo say dadku u sheegeen anigu ma garanayo laakiin dadka halka degan marka la xiriiray waxa ay sheegeen oo yiraahdeen meesha waxa ka baxay geed la yiraahdo dal geed la yiraahdo waa geed sida garanwaag oo kala geedkaas ka baxay wuu asmay kanaaladii maanta way xidhan yihiin mashruuci wuxuu u baahan yahay inta in la ego kale in laga shaqeeyo mashaariic kalena waa la garab wadaa waxa la mashruuc kale la hirgelinaya ujeedadu marka maaha mashruuc la hirgelinaya qandaraas kan yar baa nin la rabaa ummadda waa indirect beneficiary waxa inagu had iyo jeer aanu ruxleynayno dadka sida dadban uga faa'iideysanaya baan ka dhignay priority number 1 mashruuca inta la dhisay degma tagi ceel baa la qoday waa haaf ama uu dhamaystirmay halkii lagama cabin ku kala la bilaabay la leeyahay bal aqligan ay anu waxaan rabaa inaan idin iftiimiyo mashruuc ma inaan isu dul istaago oo raqaan ma wada akhrin karo laakiin waxaan rabaa in dadku ay fahmaan wixii aan gacmaha ku haysanayna sida ay u burbureen iyadoo looga dan leeyahay political waqtigii hebel baa la qabtay iyo mashruucaas waxba la arki war mashruucan abdil laftiisu wuu ku qasbanaayo MDG project-ku dawladda federaalka waday waa la daba galayay qasab haduu wax burburay wax dadka la tusaal loo baahnaa qofka dictatorku isagoo shacabka u danaynaynin uu ku qasban yahay in wax lagu amaano iyo wuxuu dadka tuso iyo wuxuu dadka ka gado inuu u baahan yahay mashaariicdii markaa la fuliyay hadii ay u burbureen hebel baa qabtay waa nasiib darrade kuwa kale inuu bixinayna maxay yihiin kuwa kale inuu ordayna maxay yihiin waxaad arkaysaa wax la dhisay oo aan shaqo gelin xarun caafimaad baa la sameeyay tu kala la sameeyay waa la dhis sanadkana maxaa la sameeyay horta tii hore waa in la qalabeeyo waa in shaqaalihii loo qabto waa in miisaaniyad loo qabto waa in adeeg bixiso tii oo halkii taagan yaa nin qandaraas la ah si haddana wax loo siiyo yaa waxa la oranay iskuul kala la dhisaya hadii iskuulkii hore iyo xarunta caafimaadka kale midna ma shaqo gelin taana dameeraha galaya tu kalena waa la garab wadaa marka anigu waxaan rabaa inaan idin iftimiyo kaliya mashaariicda miisaanka ay lahaayeen amiida dadka u lahaayeen sida gobolka jarar waa laga fuliyay mashruuca waxa laga fukuliyay ma taqaanaa mashruucaas aan ku sheegay laga fuliyay degmada Gunagado halkaas u sii mar halka tagaya jarar water supply baa iyaduna jirta meelo fara badan oo kala gedisan faafan kursum water supply and rangeland project baa jira waxa jira ma taqaanaa Kobwa Chale meesha la yiraahdo iyadana halkaas oo kale waa rangeland project iyaduna waxa loogu tala galay every 5 km xooluhunay ka cabaan dadkuna ka cabaan 5 km walba waxa jira mashaariicda waxa jirta iyaduna ma taqaanaa laga qabtay gobolka Qoraxay aad u fara badan
mashruuc halkan ka baxa marka ugu dambeeya tagaya meesha la yiraahdo wuxuu socdaba marka ugu dambaysa dhanaan ku gabagaboobaya jirta waxa jira oo kale mashaariic fara badan oo iyaguna river intake loogu tala galay webiga inta laga soo jiido waxaan u jeedaa toga marka laga soo jiido kadib in togu marka dambe ee halkaas buuxsanto inuu wadada saacadiga ku noqdo kadib marka xilliyada jiilaalka ay roobku tiin in laga faa'iideysto dadku ay ka cabaan beeraha laga waraabsado xoolaha laga waraabsado kuwiina adigu kuwa badankoodu qaarkood deemada fiicnayn baa la yiraahdaa laakiin wixii hirgalayna dib bay u noqdeen ujeedadanu marka waxa weeyaan waxaan oo dhan ma akhrin karo waxaasoo dhan exactly waxa ku wada qoran waa mashaariic hal mashruuc oo beenihina kuma jiro wallahi billahi ta'ala page-ka ugu yar waxa ku qoran 7 mashruuc mashaariicdii noocaas ahaa saddex arrimood bay ahaayeen mashaariic inta la dhammaystiray shaqaynaysa waqtiga cabdiile u dhacay oo maanta waxa la wax ka jira wali jira halkii aan laga sii anba qaadin marka waxaan rabaa in tooshka lagu qabto waay markii la dhammaystiray mashruucii inuu shaqo galo iyo ahayd mas'uuliyadda inay la wareegaan meesha malaha wax la wareegay iyo wax la istaba galayba waxaan u malayn dawladda mashruucda waxay tahay inuu u tirsanayn inuu ogeynba magaalada jigjiga markaan dib u daba galay waxaan la xiriiray dad fara badan oo maamulkii hore kamid ah oo biyo gelinta jigjiga waxa ogaal ah 40 ceel baa ka qodan bay ugu yiraahdeen wallahi jigjiga agagaarkeeda oo biyo halka wada taagan yihiin waxaan u malayn kuwan inuu ogeynba kuwana ceelal hor la qodayaan sidoo kale waxaan rabaa markaa in dadku ay fahmaan mashruucii shaqaynayay ee dadku ka cabayeen ee shidaalka u fadhiya generatorka yar u fadhiya wallahi billahi hadda intaas oo dhan way jirtaa imaka dadkeena dhibaatay jirtano mid Pakistan jooga doonayno halkan kaaga warramay jigjiga oo haddaad imaka run ka hadasho nin Pakistan jooga oo shilima loo diray baa yaa oranaya waa been mo waxa ku sheegay oo dhan waxa jira mashaariic u fadhida wallahi billahi generator kuwa shidaal u fadhiya jira kuwa waxa jira shaqaalihii iyo wixii iyo nidaamkii wax maamula intay waayeen shaqaalihina iska kala tageen oo dadkii ayna isku tashanin oo dadkuna isku tashadaan su'aashu marka waxa weeye aanu socono mashruuci dhammaystirmay dadka u shaqaynayay wuxuu u kalabsi garoobay loo joogtayn waay shidaalka maxaa loo geey waay generatorka maxaa loo geey waay spare part-ka maxaa loo geey waay shaqaalaha mushaarka maxaa loo siin waay maxaa loo joogtayn waay mashruuca ka kafaynaya 300 oo kun maanta oo total bulshada dadka kamid ah ama ka badan marka uu generator u fadhiyo ama shidaal u fadhiyo logiga ku kala oo 5 milyan aad nin siinayso ee ku garab bilaabaysa hadana muxuu yahay taas waa su'aasha u baahan laga jawaabo su'aasha labaad u baahan laga jawaabo wax weyn mashaariicdii la dhammaystiray ay ahayd in shaqo galan muxuu shaqo gali waayeen halkii looga sii qaadi waayay kuwan kale sameynayna muxuu yahay kuwan kale maxaa garanti garaynaya dasam degmo hal degmo ya mashruucna shaqaynayay oo kalabsi garoobay midna uu haaf yahay ku cusubna waad bilaabaysaa degmada marka midkii ahmiyadu leh warkhiyaalka dadka laga daay waxa loo baahay marka su'aashaan in laga jawaabo su'aasha kale kuwii ongongiga ahaa mashaariicdii socotay iyaguna maxaa loo dhamaystiri waayay boqolaal mashruuc baa la yiri cabdi leeba naga daayo horma iyada halkan la jooga la go'aaminayaa Soomaalida dhibaatada haysata iyada halkan joogo yaa laab la kac loo go'aaminayaa iyadoo qof lagu xumaynayo ma meel hebla mashruuci halkan laga sameeyay saysaha maka wanaga daanna xilliga cabdi leeba kala sameeyo wanaf mala deemasha war design ma lahayn maxay ma lahayn kan ma lahayn maxay ma lahayn waa khasaare ku kala cusub bayna bilaabayna wadankii saasoo ku burburay wax alla wax maanta gacan aynu ku hayno ma jiro mashruuci siyaasadda ee MDG-ga ee UN ugu tala gashay in adduunka dhan loogu tala galay oo sideed componenti buu ahaa marka qaybtan biyaha baan hadda ka hadlaynay sideedii componenti waayahay UN mar bay samaysay Ethiopia way ku caawisay way ka faa'iideysay Ethiopia
xisaabtaas way kugu xidhan tahay maxaa kugu xisaab xidhan intaasoo mashruuc in ay tatanaqoqaal Ethiopia qoratay way dhamaatay waana laga cabaa waa functional adaa iska xumeeyay UN tana failka saas ugu jira marka caalamku maanta halkan wax laga soo wada qorsheeya MDG projectiga wuu dhamaaday de markuu dhamaaday mashruucan wuu dhamaaday maada dib lagugu celini laguguma celinaya adiga moogta mashruucan wuu dhamaaday haddaad ka faa'iideysatayna waad ka faa'iideysatay haddii kalena dee wuu dhamaaday adi laguguma celinayo moogta marka Ethiopia lafteeda dee mashruuc noocaas oo kale inuu Soomaaliya saas ugu xisaab xidhan yahay marka ma siyaasad cusub baa laynoo sameeyay ma siyaasad cusub baa laynoo sameeyay hadda lafteeda waxa jira isaguna waxa lagu bedelay sustainable development goal oo isla biyaha hadana laakiin de policy baa kala duwan markaas waxay ahayd biyo in la helo hadana policy waxa weeyaan biyo clean and safe water in la helo way kala duwaneed kolkii hore biyo nadiif in baa la rabin la helo oo dadku cabaan marka kuwa la helo ka bacdi ba hadana la sii kala dooranaya marka waxa ku kala duwan yihiin kan kale siyaasadiisu waxa weeyaan waa in la helo biyo nadiifa oo hadana safe ah marka la leeyahay safe maxay naga safe inoo keenay gidibkeenu ka cabi jirnay kala baro gidibkii dadku barooranayaan waa inay ka madax banaan yihiin safe marka la yidhi germs inuu ka madax banaan yahay waxyaabaha elementiyada kale ee harmful substance ee dadka naftooda khatar ku ah ee biyaha la socdana waa in la hubiyay oo purification lagu sameeyay oo ma taqaanaa la hubiyay inay ka madax banaan yihiin kuwa way ku la diiday hadda inaguna waxaynaan haynba kuwii dhoobada ahaa ee wax walba la socday ayaynu la'nahay marka ahmiyada aan topican u soo qaatay detailkiisa kale de masi geli kara kamana baxayo laakiin anigu waxa rabaa bulshada inaan u iftiimiyo kow wixii hore mashaariicdii MDG-ga ee ku baxday 32 bilyan waxa la waxaynu ka haynaa ma jiro wixii abdiila ku ciyaaray uu ku ciyaaray laakiin wixii laga soo gaadhay waa la dayacay way su'aashan socon in la isweydiiyo maxaa loo dayacay iyadoo hebel lagu xumeynaya la dalacay marka yaa la dayacay waxa soo burburay definitely dadnimada noocaas marka haddii wali aan dabada sii hayno oo ina runta isu sheegaynin oo iyadoo saa wadanka u burburayo odaygu bakoorada uu hor soconayo una oranaynin war mashruucan iyo kan iga daayo kan generator-ka igu samee balek imika marka inta soo degmo ay biyuhu ka go'ayaan odayaasha halka ka soo jeeday mas'uuliyiinta garab fadhiyaan la soco oo waxay leeyihiin waa weerar wadanka way saaran tahay xageed iska saaran tahay oo baa loogu baqtiyay wadanka tamirka noocana diidanahay tamirka noocana ayaa rabnay inaan baraarujino taas macnaheedu kama dhigna dadka lama wada tuuri karo laakiin waxa leenahay qofka khaldan aqliga saliimka intuu shaqeeyo hala qabto wadada aan ku socono waan qiimeyn doonaa article kale waxaan ka hadlaynaa la yiraahdo missed opportunity so far wadada aan ku socono kaliya tan qiimeynayna wadada aan ku socono ma saxba mise sax ma horumarku sida dadku ay u fahmeen ma horumarku wax gradually ku yimaada oo sanadii laba midna lagu ma qabto laakiin wadada horumarka lagu gaarayo lafteedii baynu ka dhacsannahayba taas marka waa mawduuc kale ee ma sii galayno mawduucana saasan ku soo gabagabeynayna